بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم walaalyaal waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii ay ku gaareen iyo tanaasulaadkii ka dhacay galmudug oo madaxweynihii hore mudane xaaf iyo Axmed Qoorqoor ay ugu tanaasulay madaxweyne xaaf ugu tanaasulay madaxtinimada Axmed Qoorqoor oo halkaas ay ku midowday galmudug ayaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waa ku mahadsantihiin waana ku faraxsanahay waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa tanaasulkii Axmed Ducaale Geelle shalay uu subiimeeyay inuu ilaa Djibouti ilaa uu soo reeb keeno dabadeedna haddana tanaasul uu sameeyo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa odagu cadaay inuu yahay ugu mahad celinaynaa inuu haddana wax ka dhiso oo wax ka maamulana waa ku bogaadinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa madaxweynaha cusub Axmed Cabdi Kaariye oo asaguna ilaa ay maalintii la doortay isu soo dhawaasho siyaasiyiintii iyo waxgaradka galmudug ka dhex wada haddana guusha u dambeeyay ka gaaray asagana aad iyo aad ugu mahad celinaynaa halkaana waxaan ku aqrinayaa golaha hogaaminta war-saxaafadeedka uu soo saaray golaha hogaaminta Habargeer waxa uu bogaadinayaa isla markaa soo dhaweynaya tallaabooyinka midnimada iyo wadajirka leh ee galmudug ku tilaabsatay taas oo keentay in ay ka hana qaado galmudug siyaasad iyo midnimo iyo wadajir ku dhisan golaha hogaaminta Habargeer waxa uu si mug iyo miisaan bale u bogaadinaya kaalinta uu ka qaatay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo heshiisiinta iyo isu keenida Soomaalida ku kala aragti duwaneed siyaasadda galmudug golaha hogaaminta Habargeer waxa uu uga mahad celinaya madaxweynihii hore ee galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf kaalinta nimada iyo xilkasnimada ku dhisan ugu tanaasulay midnimada iyo wadajirka maamulka galmudug golaha hogaaminta Habargeer waxa uu u mahad celinaya xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka siyaasiyiinta kale odayaasha dhaqanka waxgaradka reer galmudug iska xil saaray dib u heshiisiinta siyaasadeed ee midnimada iyo galmudug ugu dambeyntii golaha hogaaminta Habargeer waxa uu ugu baaqayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer galmudug in ay xoojiyaan kana qayb qaataan xoreynta iyo horumarinta dhammaan deegaanada galmudug una horseedaan xasilooni waarta